shirkan jaraa'id waxaan ahayd ujeedadiisu inaan ka hadalo iyadoo ay jirtay maalmahan tabashooyin iyo cabashooyin ka imanayay dad ka mida beelaha reer Jubbaland ama deegaanada Jubbaland oo ay ka hadlayeen cabasho ka jirta baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka ee lagu yeelan lahaa taas waxaan doonayaa inaan wax yar ka idhaahdo markii aan sameynay la tashiyo badan oo maamul ahaan reer Jubbaland iyo dowladda federaalka ah iyo mujtamaca reer Jubbaland in badan oo ka mid ah international community laftirkooda ay xiriir badan ka soo sameeyeen waxaan qaadanay in arrintaa dib loo fiiriyo oo tabashada dadka wax tabanaya ka cabanaya in baarlamaanka xuquuq ay u lahaayeen ay kaga maqan tahay la tixgeliyo cabashadooda sidaa daraaddeed waxaan go'aansanay la tashiyadaas ka bacdi in lagu daro tiro gaadhaysa 10 xubnood midaas oo u noqon doonta ama loo sheegi doono dadka reer Jubbaland ee wax cabanayay tabashada ku jirtay ee ka hadlayay inay ka maqnaayeen ama ay kaga maqnaayeen kuraas baarlamaanka inay soo gudbisan doonaan dadku qabiilka ay yihiin iyo degmada ay yihiin ay wax ka tabanayaan la marin doono markaa processkii hore loo soo mariyay baarlamaanka processkii hore xildhibaanadii hore loogu soo xulay oo ay goobjoog ka hayeen dowladda federaalka igad maamulkii markaa interim Juba administration ahaa iyadoo processkaa la marin doono oo ay noqonayso in degmada ay cidaasi ka tabanayso dib loogu noqonayo oo la fiirinayo deegaankaas waa kee beelaha degan processkaas intaa la mari doono taas markaa ay keeni doonto inaynan iska noqonin fowdo ee qof waliba meesha uu degan yahay iyo deegaanka uu ku salaysan yahay halkaas laga raad qaadi doono waxaan rabnaa arrintaa waliba inaan idin caddayno in sidii processkii hore ama Addis Ababa agreement ay igad uga ahayd garantoorka inay midkaana weli sidii iyada uga noqon doonto oo ay xaqiijintiisa daba socon doonto markaan arrintaa intaa kaga gudbo oo ay noqoto soo gudbinta beelaha cabanaya iyo baarlamaanka iyo dowladda federaalka iyo wakiilada igad iyo hawshaa la isla dhammayn doono waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo sababta keentay number baan hadda noo qoran 75 xubnood waxaan horta rabnaa Jubbaland inay noqoto waa deegaan Jubbaland la yiraahdo ma aha beelo iyo qabaa'ilo waxaan rabnaa inaan ka gudubno waxa la yiraahdo 4.5 waxaan rabnaa dadku inay u gudbaan degmo iyo gobol iyo tuulo oo waxa laga hadlay ay noqoto hebel degmadeebu ahaa xaafadeed ahayd sidaas ahayd oo aan ka gudubno qaybtan qabiilka aan weligeed aan haraynin ama 4.5 kan ilaa hadda la isla daba socdo ama qabiilkan isagu noqday zaawiyada ama miciyaarka wax lagu cabirayo inuu meesha ka baxo midda dhabteen u baahanahay waa midaas sidaas markaa waxa ku saleysnaa baarlamaanka Jubbaland la soo dhisnay inuu ku dhisnaa mid maamul deegaan dadku wax ku qaybsanayaan oo waliba odayaashu iyo dadka dhaqankii iyagu intay fadhiistaan ay qaybsanayeen baa ta kale waxa meesha ku jirta in baarlamaan furan la galo oo 200 uu gaaro oo 500 uu gaaro waa su'aal saddexdan gobol ma qaadi karaan waxaan u baahanahay waxa weeye baarlamaan tayo leh oo shaqeeya oo noloshooda kafaaladooda iyo amnigooda iyo waxooda intii la qaado dad shaqeynaya shaqo loo diray inay noqoto inayna noqonin tiro iga sheeg igu qor igala xil anaa ku jira meeshan doonana aan jiro baarlamaan aan mas'uuliyadna lahayn oo qaabka ku shaqeynaya ma qaadi karayn taas markaa waxay keenaysaa kulama oo la yareeyo inay ku xilay shaqadana u fiican tahay mas'uuliyadda laga qaadayana ay u fiican tahay
waxaa ka mid noqonayso kale golaha wasiirada oo kale haddaan idhaha 60 wasaaradood baan dhisayaa 62 wasaaradood baan ka dhigayaa cabinet intaa la eg baan dhisayaa iyada lafteeda xagee noloshoodii facilitation waxay ku shaqayn lahaayeen xafiisyadii gaadiidkii amnigii intuba wax aad u tiro badan saas daraadeed ba waxaan iyadana anagu qaadano noo taala wax kasta shayga ugu yar ee aan ku samayn karayno inaan ku samayno wixii aan ka dhigno wax facaala oo shaqayn karaya oo la qaadi karayo laakiin haddii qof walba intaad musamo ku magacowdo ood magac u sheegto meeshaa lagaga tagaa macno inayna samaynayn arrintaas waxaan is leeyahay waxaan doonaynaa inay sidaas nagaga dhammaato aad baan ugu faraxsanahay in aan maanta dadkii cabashadoodii la tashigii dowladda federaalka aan la yeelanay oo aad ogtihiin wasiirka arrimaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha guduhu inay arrintaa daraaddeed u yimaadeen madaxweynuhu xidhiidho ka badan oo kale uu ka soo sameeyey international community-ga ay ka hadlayeen igad oo arrintaa garantoorkeeda ay ka hadlaysay inaan maanta qaadanay go-aankaasa inaan baahida iyo tabashada dadka la tixgeliyo laakiin boroseyska ay marayso sidaana 10 xubnood aan ugu daray waxa aan hadda intaa u adkaynaynana ay tahay laba xaalo inaan qabiil ka gudubno oo 4.5 meesha ay ka baxdo waxaan u baahannahay dadka reer Jubbooyinku oon ugu baaqayaa waxay ka hadli doonaan inay noqoto reer magaaladee baad ahayd tuuladeed ahayd xaafadeed ahayd distrigeed ahayd ayna noqonin reerkeed ahayd lafteed ka ahayd raydee xageed sidaas ahayd inayna noqonin aan ka gudubno masaladaasoo haddaan u badanno Soomaali baan nahay reer Jubbaland baan nahay reer Jamaamo weeye reer Jilib reer Bu'aale reer Garbaharey reer Doolow reer Afmadow reer Ceelwaaq halkaa inay dadku ay maqlaan kuwa reer Kismaayaana Calaley baan deganay Farjanno Hawlwadaag halkaas qolo walba inay noocaas noqoto aan ka gudubno marxaladan qabiilka ah Soomaaliya dib uga badan qabiilkan halbeega noqday ee isaga wax lagu cabirayo ee isagu noqday miisaanka sharciga hadda lagu kala baxayo dhibaato nooga badan ma jirto reer Jubbaland waxaan rabaa inaan ugu baaqo mar labaad iyo mar saddexaadba inaan ka gudubno qadiyadan qabiilka ee qofku aan isaga ka dhiganay isaga aan aamineen diin ka dhiganay maaha diin inooma islaamku qabiilka uu ka hadlayo in lagu ilaaliyo jinsiga iyo litacaarafu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala lama odhanin isku laayo oo xumaan isugu gargaaro dhib isugu waxeeye in bal lagu ilaaliyo mataqaanaa meesha aabbaha iyo hooyada iyo yaa maxramku ayo masaa'il diiniya lagu ilaalinaya laakiin hadda qabiilkan sidaan ugu dhaqmayno tii rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacuha fa innahaa muntina war waa ufays kaga taga midii uu lahaa tiibaan hadda intaan sii dhaafnayn uf kale ku sii darnay marka aad baan arrintaana guud ahaan Soomaalina ugu baaqaya gaar ahaan reer Jubbaland ugu baaqaya aad baan idinku mahadcelinayaa mahadsantihiin